ila talida yaa bixiya ila tali waa talaysi advice advice kuna siduu u dhacaa okay innaga dhulkeeni markaan joognay waxaa booska ilaalada qoyska iyo guriga in la ilaaliyo in la dhowro waxaa ku jiray familiga oo cidda ama qaraabada ayaa ku jirtay guriga waa guri la ilaashanayo ahaa ma ahayn guri cid kastiba maaragtay waxay doontaa ay ka odhan karto guri la ilaashanayay ayuu ahaa oo qaraabada oo dhan ee labada dhinacba laga ilaalinayay waxaa ilaalinayay sida oo kale oday dhaqameedku wuu ilaalinayay oo waad arki kartaa guri nin gurigiisii la isku haysto oo gurigiisii mushkil ay ka dhex taagan tahay inaanan loo ogolaan jirin ama ay fududaanaynin in gurigaasi uu burburo oo furiin uu dhaco oo ninkaasi markaa xaaska ama gabadha uu furo maadaamay isqabsadeen ama isfahmi waayeen waxyaaba qaarkood waayo waxaa isweydiin mudan runtii oo saxa in la isweydiiyo dadkii hore marka la fiiriyo ee waalidiinta ahaa annaga waalidiinta inoo ahaa ama kuwii ka horreeyey ayaga oonan cilmi badan oo maadi a la sheego aynan jirin cilmi badan oo diin a marka la sheego aynan jirin buu haddana furiinku iyo kala taggu uu yaraa odaygo haddaad doontid aad maanta marka aad ku eegto nadariyadda ama glasseska ama muraayadda wax lagu fiiriya maanta markaad ku eegto aad odhan karto jafaaf iyo adayg iyo qalayl ayay wad ahaayeen aad odhan karto haddana guri kama burburi jira way mudan tahay marka in la isweydiiyo sababta uu gurigaasi u burburi jirin maxay tahay oo maanta oo cilmi la helay oo wax la bartay oo diin la bartay oo dadku ay muthaqafiin noqdeen ay dadku wacyigoodu u kobcay hadday diin tahay oo aakhiro maaragtay lagu baraarugsan yahay in la dhimanayo xisaab la isweydiinayo maxaa keenay in uu gurigaa hore uunan burburin ka maanta joogana uu burburayo marka jazaakum allahu khayran waxaa marka geeska africa marka la joogay ama caalam islaami la joogay waxaa ku jiray waxaasoo dhan baa ilaalinaya qoyska oo gurigaa ilaalinaya oo ka warqabay xaafaddu way ka warqabtay oo way isla socotay oo waa la iskaashanayay oo waa la istaageerayay oo waa haddii ay dhacdo in uu oday maxaan ku dhadaya xaaskiisa gacan u qaado ama ku qalto odayaashii kalaa maaragtay la hadli jiray maanta oo aan joogno qarniga 2018 2018 nasiib darro inta badan arrintaasi ma jirto ee waxaad moodaa in la dhayalsaday in furiinka u batay annaga safara ayaan gallay africa waan soo marnay geeska africa waxaad arkaysaa in uu furiinkii xoog uu u batay waa isweydiin waa wax mudan in laga doodo oo dibay laga furo oo la isweydiiyo maxaa isbedelay maxaa soo baxay maxaa cusub maxaa keenay gurigii shalay qoyskii shalay la ilaalinayay jaarku masaajidku maxaan ku dhaday odayadu dariiq intuba ay ilaalin jireen maxaa maanta loo ilaalinay hadday muqdisho noqoto hadday hargeysa noqoto hadday jabuuti noqoto hadday nairobi noqoto furiinku wuxuu u badan yahay maxaa kaa galay ayuu u badan yahay runtii waana nasiib darro xaqiiqatan okay waxaan arki karaa marka africa ayaa talada bixiya waalidka halkan ayaa talada bixiya dabcan weli waalidku taladii wuu bixiyaa oo wuu leeyahay ila tali yaa la weydiiyaa africa sheekhyadaa la weydiiyaa halkan sheekhyadii waa la weydiiyaa culummadaa la weydiiyaa yaa la weydiiyaa dadka qaraabada ah hadday odayaal yihiin iyo haddii ay dhalinyaro yihiinba waxaa la weydiiyaa in reerkan ay ilaaliyaan oo laga tala bixiyo oo dhibkooda maaragtay la dhex galo oo maaragtay la waaniyo wax la tuso weli intaa qaybood ee tilmaamay hadday geeska africa tahay iyo hadday halkan qurbaha ay tahayba way ku jiraan oo sidii loo heli karo ayaa wax loo weydiiyaa oo maaragtay inala tali leedaha okay haddaan isla garanay taas waxaan rabaa inaan u imaado tala bixintaasi raad intee la eg bay ku leedahay gurigaasi inuu sii jiro
raad intee la-eg ayay ku leedahay gurigaasi inuu sii jiro oo uu nagaado. waxaan odhan karaa dabcan daraasay u baahan tahay, statistic bay u baahan tahay in la sameeyo. nasiib daro dee ma haysano inagu imkaaniyaad iyo maxaan ku idhahdaa macaahid iyo institutiono u banbaxay in ay ka shaqeeyaan mashaariicdan iyo barnaamijkan lagu horumarinayo bulshada. haddaan qorbo ku nool lahay iyo haddii waxaan odhan karaa dhulkiiba la joogo, dabcan waxyaabahaas waxaan u malaynayaa in ay mashruuc uu noqonayo projects. laakiin projectka inta badan waxaan anigu ka show qabaa ama ka shiki qabaa tayada iyo qaabka loo samaynayo iyo inta maxaan ku idhahday ama fan ha ku baxo ama yuna ku bixin ama budget ha la geliya ama yaa la geline, wax soo saarka uu yeelanayo waxaan isleeyahay hadday jirtaan waxaa dhici karta 1 iyo 2 in ay jiraan. marka 1 iyo 2na ma gaari karaan baahida aan u qabno in diraasooyin studies in la sameeyo oo bulshada ku wajahan, gaar ahaan qoyska ku nool geeska Africa iyo qoyska ku nool galbeedka, oo dadka loo soo bandhigo sidii ay uga badbaadi lahaayeen dhibaatooyinka qoyska haysta ama mashaakilaadka uu qoyska ku jiro. okay, waxaan odhan karaa marka taladaasi kow, talada wadaadku ama sheekhu ama imaamku uu bixiyo marka loo soo doonto ayuu taladaa bixinaya. okay, talada yuu sheegaa qofkii usoo doonto. talada waxa usoo doonanaya ama gabadhii ama wiilkiiba u imaanaya. okay, sheekhu awood kuma le dadkan uu wax ku qasbo in uu daba socdo waqti uma hayo. marka uu la taliyo laba mid bay noqotaa: in ilaahay dadkan qalbigooda uu ku ilhaamiyo talada inay qaataan oy ku dhaqmaan, ay practice yacna dabaqaan oy ku badbaadaan. kuwaasina way yar yihiin. maxaa yeelay waxay u yar yihiin waxa weeyaan inta badani taladaas aynan u qaadanin. taladaasi waa tala guud, waa tala guud. waan ku celinayaa, taladaa la bixinayo la siinayo waa tala guud. talo gudaha inta loo dhaadhacay la baadhay cudurku meesha uu ka imanayo ma aha. waa talo ku salaysan ilaahay ka baq, oo dee wax ka qiimo badanba ma jiro talo ku salaysan ilaahay ka baq. laakiin waxay u baahan tahay inuu qofku fahmadee meesha lagala hadlayo ilaahay ka baq marka la leeyahay maxaa loo jeedaa inuu fahmo uu ku baraarugo ayay u baahan tahay. kow. labo, waa talo ku salaysan sabir, adkayso. oo ma waxaan adkaysi iyo sabir aan lagu helin baa fudfudayd iyo boodbood lagu helaa oo lagu gaadhaa? waa maya. ayadana waxay u baahan tahay runtii xaqiiqatan in la fahmo maxaa loo sabraa, sidee loo sabraa, goormaan sabraa, maxaan ku sabraa. ayadana waa in la fahmo runtii xaqiiqatan. waxaan leeyahay marka walaalahay, ila talidu waa mid one offer, ma aha mid soo noqota. waa mid wax guud lagaala hadlo, ma aha mid gudaha lagaala hadlayo iyo maaragtay dhibka deep down jira ee aad tabanaysa ama qalbiga guntiisa aad ka tabanayso. inta badan waa talo adiga keligaa laguu sheegay. way yar tahay taladaasi labadiinoo isla fadhiya in la idiin sheego. maxaa yeelay rag iyo dumar waxaaba la dhahaaba meel yaan la soo fadhiisinin, yaanan meel la isugu keenin, yaanan lala wada hadlin. maxaa yeelay laysdhegaysan maayo, waa la qayli. dabcan waan usoo joogay anigu dad meel wada fadhiistay, ninkuna qayliyey, gabadhuna qayliday. marka maxaa la dhihi, ha lala kala taliyo oo labadoodii laba talo ha la kala siiyo. yani hal talo oo dee mid ah, laakiin si kala duwan ha loola kala taliyo. waxaan isweydiinayaa marka taladaasi raadayn intee la eg bay leedahay? waxaan idhi way yar tahay. maxaa yeelay qofkan dantiisuu wataa. marka uu talada kuu soo doonanayana wuxuu rabaa in aad isaga wixii cajabinayey ee uu raadinayey ee uu jeclaa in uu maqlo ayuu maaragtay ka dhex raadin taladaadii. haddii waxaad u sheegtay marka aad dhegaysato wax kuu sheegay hadday noqoto wax isaga aanan anfacaynin oo kiiskiisa maaragtay aanan taageeraynin, ama isaga kusoo jeesanaysa oo odhanaysa adigu waxaan iska bedel, waxaan baa lagaa rabaa adiga, waxaan samee,
waxay u badan tahay marka taladaasi sida aan aragnay tala aan la qaadanin oo uu qofku ka wato tiisi dhowr jeer baan soo qoray runtii ila tali taydaanan kaa wadani waa gacmadaalis ha yani inaad ila tali tiraahdo oo qofkii waqti aad ka qaado oo sheekhii iyo imaamkii iyo maaragtay waalidkii iyo qaraabadii dadkii oo dhanba qof kasta oo tala aad u doonantayba taladiisii inta aad daalisay ood waqti aad ka qaaday haddana taada aad ka wadato waxa weeyaan waa cadaalad darro taasayna u badan tahay oo dhacda inta badan okay aan u soo gudbo marka counselingkii muxuu yahay talada marka hore maxaa tilmaamay qofka la weydiinayo waxaan idhi waxaa suuragala in uu sheekh yahay in uu imaam yahay in uu macallin yahay intuba waxay leeyihiin xirfado kala duwan iyo khibrado kala duwan ayay leeyihiin dadkaa wax la weydiinaya laakiin waxaa suuragal ah khibradda baahida aad raadinayso ama aqoonta baahida aad raadinayso mushkilada ku haysata in lagu xalliyo inuuna ku takhasusin baa dhici karta qofkaas aad talada weydiisay ha qofka aad talada weydiisay taladaasi in caam generic in ay iska noqoto ayay u badan tahay baan idhi ilaa inta maxkamadaha ka shaqaysa mooyaan imaamyada oo kale ama culummada khubarada ku takhasusay fiqiga jaanibka maaragtay marka laga hadlayo mucaamalaadka qoyska maxkamadaha jooga marka geeska africa oo kale kuwaasi way taaban karaan mushkilada meeshay ka jirto talada ay ku siiyaanna wax ku ool way noqon kartaa oo markaa way ku anfici kartaa adiga laakiin su-aasha weli ku xidhan waxa weeyaan yaa dhagu dhiga yaa dhegaysta yaa qaata yaa maqla usbuucii hore qofkii lala teliyey baa maanta soo taagan oo aanan waxba maaragtay bishii hore wixii loo sheegay buu maanta soo taagan yahay uu leeyahay ma rabo okay counselingka markaan u tagno waxaa la yidhahdaa counseling talo bixin ama la socod iyo waraysi xeelad dheer iyo qofkan in loo kuur galo oo la raadiyo mushkiladu meeshay ka imaanayso marka counselingka wuxuu kaga duwan yahay ila talida caadiga ah runtii wuxuu kaga duwan yahay kow qofka kula talinayay waxaan idhi wuxuu noqon karaa sheekh wuxuu noqon karaa macallin wuxuu noqon karaa qof kasta rag iyo dumar laakiin waxa u dheer qofka counselorka ah ee talabixiyaha ah waxa u dheer cilmigan ayuu ku takhasusay wuxuu qaatay maadada psychologyga cilmiga maskaxda caqliga brainka ayuu maaragtay diraaseeyey oo cilmu nafsi la yidhaahdo ayuu diraaseeyey qofkaas tababarka ayuu qaatay waxa u dheer tababarka therapiga oo maxaa yeelay wixiibuu ku samaynayaa practice oo shaqo maalmeedkiisa waxaad dhici karta halkuu imaamka iyo sheekhi iyo wadaadku uu wax kale ku mashquulsan yahay qofkani inuu la talinayo qof weyn inuu la talinayo qof yar inuu la talinayo arday khibraddiisu in ay tahay qofkan in la jiheeyo oo la daba socdo oo loo tilmaamo cudurka iyo dhibka haystaayi meesha uu ka jiro marka waa maxay muxuu bartay behaviorka nafsiyaadku siday yihiin ayuu qofkani bartay wuxuu diraaseeyey cilmiga la yidhaahdo cognitive behavior therapy waa maxay fikradaha iyo caqliga afkaarta kugu soo dhacaysa ee madaxaaga kusoo dhacaysa tusaale oo kale aabbahayo ama wuu naga maqnaa macnaheedu nama qiimayn jirin ama anagu uguma jirin maxaan ku dhahday yani ajendaha priority number one anagu ma ahayn wax kalaa priority u ahaa fikraddaas ama tasawurka ama halkuu ka imanaya inaad sidaa tidhaahdo meesha uu ka imanayo ayaa maaragtay la diraasaynaya siday ku dhalatay xaggay ka timiday maxaad ku aamintay waay baad u aamintay sidan inay saas noqoto xaggay ka timid ha wuxuu qofku diraaseeyey oo kale cilmiga la yidhaahdo neuro linguistic programming cilmu lcasaaba waxaa la yidhaahdo oo dareemada ah
iyo neerfiyada iyo qofkan jirkiisa waxa isdhex maraya ee kala gudbaya ee message ee gudihiisa ku jira ayuu qofkani diraaseeyey oo u bartay. adiga markaad doorato ama aad doonato muxuu ku shaqeeyaa? ila tali kuma shaqeeya isagu. qofkaasi wuxuu ku shaqeeyaa in aad u tagto la fadhiisato saacad ama 2 saacadood uu ku dhageysani. qofkaasi wuxuu u fiirsani patternka waxa aad ka sheekaynayso, hadalladaada kalimaadka ayuu u fiirsani. kalimaadku wuxuu hoosta ka xariiqayaa kelmad kastaba waxay sidaa miisaan gaara iyo risaalo gaaray sidaa. marka aad tidhaahdo tusaale ima daneeyo ninkaygu ama ima jeclo, gabadhu markay tidhaahdo ninkaygu ima jeclo, ima soo dhawaado, wax ilama cuno, sariirta qolka hurdada wuu iiga guurayo wuxuu aaday qolka kale, markaan wax ila qaba idhaahdo wuu dagaalamayo wuu qayliyaa. waxaa la isdul taagaya oo la isweydiinayaa goormuu qayliyaa, adigu sideed u hadashay, maxaa ka keenay isagu inuu qayliyo, maxaa ka keenay inuu kaa fogaado, goormuu kaa fogaadaa, imusuu kaa fogaan jiray, ma weligiiba sidan buu ahaa. waxaa la isdul taagayaa markaa oo la ogaanayaa adiga sida aad u hadasho, waktiga aad hadlayso, toonka aad ku hadasho, waxaasoo dhan ayaa baadhitaan lagu samaynaya. waa maxay? waa diagnostic. qofkaasi marka muxuu helayaa u ogaanayaa? wuxuu helayaa uu ogaanayaa mushkiladu meesha ay ka jirto. khayr allah ku siiyo. mushkiladu meesha ay ka jirto ma ninkaana gabadha rabin mise gabadhaa ninka caydhinaysa? ma gabadhaa ninka rabta mise ninkaa gabadha rabin? eeg, ninkani ma isla wen yahay oo mu iskala qab wen yahay gabadhan oo gabadha waxbaba uma haystaba oo maba aaminsanaba in ay su-aal weydiin karto. agtiisa kamaba aba maaragtay wasniba miisaanba kama laha. 100 jeeray maaragtay masterad iyo PhD holderad iyo mutacalimad iyo waxay doontaba ay tahay. waxaa la raadinaya oo la baarayaa markaa ninku xaguu ku soo koray. waa la waraysanaya. ila reerka waa la dhex galay, way yimaadeen, counseling bay soo doonteen. waxaa la waraysanayaa oo la raadinayaa backgroundkoodu siduu ahaa. qiso yar baan idii sheegi. nin baa ka soo dacwooday xaaskiisa dalalka carabta. xaaskiisa markuu ka soo dacwooday ayaa waxaa dhacay, wuxuu sheekhii ama ninkii maaragtay caalimka ahay ee u soo dacwooday wuxuu ku yidhi iigu yeedh xaaskaa. xaaskiibuu u yeedhay. markuu u yeedhay ee uu ninkii uu isagu hadlay buu ku yidhi gabadhiina haye adiguna hadal. gabadhii markay hadashay waxay bilowday in ay codka sarow qaado. saaxiibkay wuxuu u turjuntay in ay qaylinayso. markaasuu yidhi sheekh bal fiiri, xataa adigii kuma ixtiraamayso, way kugu qaylinaysaa. eeg, sheekhu wuu fahmay marka labadan qofi 2 meelood oo kala duwan, 2 tarbiyo oo kala duwan, 2 dhaqan oo kala duwan. ileen qofka daa'if ku koray ama damaam ku koray iyo qofka madiine ku koray labay kala yihiin. qofka muqdisho ku koray iyo qofka hargeysa ku koray labay kala yihiin. ka kismaayo ka yimidee ka jigjiga ka yimidee waa labo. qof waliba wuxuu wataa meeshii uu ku soo koray sidii looga dhaqmay. xataa kuwa isla jooga muqdisho, kuwa hargeysa dhexdeeda isla jooga, kuwa jabuuti isla jooga ayaa waxay ku soo kala koreen haddana 2 guri iyo 2 qol iyo maaragtay 2 qoys oo kala duwan aan idhaahdo. oo maalan qoyskana aabuhu uu yahay aaba shibil ahaayo maaragtay dowladda dhexe ama siyaasi ama wuxuu doonaba ha noqdo. qoyskana uu ahaa aabihii gurigan ka jiray aaba maaragtay military oo askari ah. idan maxaa meesha 2daa qoys maxay kala wataan? 2 tarbiyay kala wataan, 2 dhaqan bay kala wataan, 2 aragti bay kala wataan, 2 sibay u kala arkaan kala duwan nolosha iyo dhaqankeeda iyo samaynteeda. maalin hore waaligii idin sheegayeen soo qoray. waxaa ka mid a dadkaas dadka rajayga ku soo koray, agoonta ku soo koray, ama aan la soo korin waalidkoodii iyo maaragtay qof markaa jacayl tusaya oo waayey kalgacaylkii iyo naxariistii iyo jacaylkii. markuu weynaaday
ilaa markuu weynaaday wuu raadinayaa jacaylkii naxariistii waynay naga dhex buuxaan xaqiiqatan. okay, aan ku soo noqdo markaa counselorka qofka aad u tagta ee taladaadii iyo dantaadii iyo maaragtay baahidaadiiba aad soo weydiisay muxuu samaynayaa baaritaan faxsi buu ku samaynaya. talada uu ku siiyaayey waa talo ku salaysan waxa aad sheegtay baahideeda meesha ay ka jirto baahidaada ayadoo cilmiyeysan ayaa waxaa laguu sheegay steps aad qaadi karto, tallaabooyin aad ku bedeli karto. wax cajiiba u fiirso, inagu waxaan samaynaa inta sugno oo markaa accumulation markuu dhaco taraak markuu wixii ziyaado ee aan 20 sano ururinayay ayaa maanta waxaan rabaa wax aan 20 sano kusoo jiray 10 sano 20 sano aan soo ururinayay aanan ka hadlin habeenkii u horreysay maalintii u horreysay sanadkii u horreeyay aanan isku dayin inaan wax ka bedelo ayaa maanta waxaan rabaa bayna cashiyatin wa duhaaha overnight inaan wax kasta bedelo. wax kastaba in maalintii aan guursaday uu dib ugu noqdo waa ilaa gurigan uu burburayo oo lagu kala tagaya. adeer nolosha saas maaha. waxbaa soo tarmay, wixii soo tarmay ee isa soo bedelayay waxaa lagaa rabaa haddaad rabto tagyiir in aad u keento. tagyiirkuna processkii waxan uu ku soo tarmay ee uu isu soo bedelay ayaa la rabaa inaad geliso si tagyiirku uu u yeesho ta'thiir iyo maaragtay wax bedelaad uu u yeesho oo aad wax u bedeli karto halkii aad ugu celin karto. okay, qofka counselorka markuma arkayo, laakiin wuxuu ku arkayaa marar badan, waayo wuxuu rabaa noloshaadu inay wax iska bedesho. mushkilada aad sheeganaysana inaad ka xalgaadho oo aad bedesho ayuu rabaa. saas daraaddeed waa maxay counselorka aad u tagayso xalaqaad baad la kulmi, sessions usbuucii hal mar baad la kulmi ama maaragtay 2 usbuucba hal mar baad la kulmi. waxaa lagu siinay assignment in aad wax soo qabato ood wax soo la tagyiir baad u timid meesha tagyiir baad rabtaa inay noloshooda wax kaa bedesho, rag iyo dumarba inaad noloshaada wax ka bedesho waxaa lagu siinayaa assignment. okay, in aad joogto oo aad talada qaadato maxaa kugu qasbaya? talan kuu sheegi marka. talada counselorka in aad qaadato maxaa kugu qasbaya? counselorku bilaash ma aha, laakiin talada wadaadku waa bilaash. may maqlaysiin? counselorku bilaash ma aha taladiisu, cilmigiisuna bilaash ma aha, waqtigiisuna bilaash ma aha. innaga Soomaali markaan nahayna waxaan baranay wax bilaasha. wixii bilaashkaana wuu shaqayn waayey oo majority markaad eegto wuu noo shaqayn waayey. maxaa kugu kalifaya psychology marka? maxaa kugu kalifay tani inay shaqayso? waxaa lagaa rabaa inaad kharash la baxda, investment. waxa cajiiba marka oo aan anigu fahmi waayey dadka qaarkood mararka qaarkood qaabka ay u dhaqmaan markaad eegto. dabcan waxay ka soo jeedaa caqliga iyo fikirkay ka soo jeedaaye. baabuur markaad gadato oo baabuurku si kaa noqdo, garage baad geysaa, lacag baad bixisaa, waa lagu soo sameeyaa. u fiirsada yaa examplekaas bilaa calaykum, u fiirsada. 3 bil ka bacdi ama 5 bil 6 bil ka bacdi waxaa laga yaabaa bir kale baabuurka inay ka jabto. waa baabuur aad u jeceshahay, waxaa laga yaabaa $10,000 $20,000 $5,000 inaad ka soo bixisay. waxaad rabtaa inuu muddo ku hayo, laakiin bir baa kaa jabta, waad bedeshay, lacag baad bixisay. haddana 6 bilood ka bacdi waxbaa kaa jabay, waad bedeshay, lacag baad bixisay. waxaad diyaar u tahay baabuurkan birtan ah ee aad adeegsanayso in aad wax kasta oo kharash ah ee uu ku weydiiyo in aad bixiso. diyaar baad u tahay investmentka inaad samayso. laakiin bilaahi calaykum aan idin weydiiye dee waad aragteenoo waabad ku dhex nooshihiin, haddaad qurbo joogtiin iyo haddaad dhulkii joogtiinba waad aragteene. war gurigaygu inuu ii toosto oo aniga iyo xaaskaygu aan isku macaanaano imise jeer baad inta tagtay dhakhtar khuseeya psychologiga, cilmiga isfahansiintiina labadiina waxa aad ka dhibaatada aad sheeganayso wax kaala qabta oo aad kharash ku bixisay. idinka idi weydiinaya ha laga soo jawaaba insha allahu tacaala. jazaakum allahu khayran. imisaad kharash ku bixisay investment, imisaad gelisay gurigani si uu u jiro. waa inaan u tago qof kaste oo aqoontaas leh oo maaragtay gurigayga wax ka bedeli kara, noloshaydana wanaajin kara. dadka galbeedka aan la joogno runtii
وحويان علمي باريس أي راديين training بيتجان تببر بيتجان إننا ما أنت تببرك ولا ينوب لا الحمد لله ضد بدن أو صومالي يجيس كأفريقيا جوجية جرو تببرك بحية لكن ما دام أقان أن أولهين تيض يفائدة يقيمها إلى هاي واحد مدة أنت بدن إن أنا حوج لسارين أما محاكو هذا انترست بدن أنا الجليد واحد كل دار مياه إن الانترست بدن جلسين أو أدولي بخرش أدجلسين محايلي جوريجا قاد وناجينيسا أو أدفعنينيسا وقريب إن أن جوريجا مركا أو نالكو يقدم أن صاقدو أم بدلو مركا أو تلفزيون كسي إيجا نقضى إن أن فيكس جرايو لكن مركا أنا نيجي يحاس كيجو أن إسقابنو أنا نيجي يحاس كيجو أن إسفهم وينو إن أن آدي وايو ميل أن كوبحنا يخرش سي جوريجا يقول أكسنان كونسلر كمركا وخرش خرش بالغاربا ميل آد خرش كوبحيسي أفرسا كورسا آد لعاكا بحيسي إيا كورسا بلاش لغوسي انت بدن با كاليا أنو ما شيغي مارتي minority أما number of people أو ير أو كوبن أو مارتي committed أما شيغي majority أن كاليا لما قيمة انت بدن ولا قرد سماها لما قيمة انت بدن سببت أن لو قيمة نوام حي عقل بدن كاما قلين خرش كاما قلين جهدي كاما قلين wax badan oo aad daalo ka galay ma jirto inta badan marka maxaa waa maxay wax aad gadato ee aad soo iibiso ee aad waliba wax qiimo badan aad ku bixiso aad baad u ilaalini waa dhowri waad xifdini waad maaragtay ilaalad okay wax ajiiba marka oo aan runtii rabaa in aan si fiican u taabto oo aad ii dhibaya marka aan company leeyahay ama warshad ka soo qaad ولي مثال كان يحكوا على رجع صوماليات مركا أن ورشد له هاي ورشد يداسي محن كده هذا بري اللي كجبته مركبة أما جينها الله دونه أما تايوان الله دونه أما بانكوك الله دونه ماشي الله دونه الله دونه برازيل الله كانوا مركبة وحلايها أنت سكون الدولار باندريا برتاوا إلا كان ورشد بسوي شقيس محا سبب تأد برتا أقول هذين يسوي ورشد أسوا محي مانيفاكتشر كاس وحويان إنه يكون شيء شقيسه inay profit samayso in maalin dhaweyd waxaan arkayay halkan barnaamij laga soo duubay khayr allah siiyo nin walaal oo Soomaaliyeed oo qiimo badan oo soo sameeyay warshad yar ka sameeyay Soomaaliya inay mudshaahid baan u malaynaya oo soo saarta rootiga ha intaasoo dad ayaa ka shaqeeya ilaahay barakeeyo dadka caynka ugu fikiraya ee dalkeeni iyo dhulkeeni iyo dadkeeni u fikiraya investment sameynaya allah barakeeyo جهديودا يددالكوغا إذن كانوا ودعي إن شاء الله تعالى أوكي ورشد داسي سو وحمد الله يسوها وحن كد داليا إن أن حفظيو إلاليو وبانا ننكيغو سو ورشدي أن ترنكا إيا وح أن ربو إنو إلهي سبحانه وتعالى إنت إلمهان هيسن إلهي أكو أرزاقو إنت هيستنا الله حفظيو الله وبركيو شركنا الله وحجابو إنت لباتوينك كود عدني الله سبرسيو inaan ilaaliyo ninkayga Soomaha marka aan gabarahay xaas ahay ilaa maxaa yeelay quruxdii gabarnimada hooyanimada isaga ii haya waxaan nimanka kale oo dhan waxay iga leexanayaan maxaa yeelay nin baan leeyahay oo gabar xaas oo la qabo ayaan ahay oo guri ka soo jeeda oo mas'uulad ah oo hooyo ah ha marka aan nin ahay xaas leeyahayna gabar baan qabaa warshad ah ilma ii dhalaysa aniga i xanaanaynaysa i ilaalinaysa i dhowraysa i xanaanaynaysa u fiirso miyay dhici weyday marka warshadaas la isla joogo in la dhowro in investment lagu sameeyo in la ilaaliyo in wax kasta laga hor u mariyo waxa cajiib marka walaalahay oo runtii aan aad ula yaabanahay in loo arko guurka wax yar oo fudud oo inta halka la galo dhinac kale looga baxo nimanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdhuhu waa warshad aad u baahan tihiin inaad ilaalisiin hal la ilaaliyo investiga ugu qiimaha badan ee lagu bixin karana ha lagu bixiyo gabdhahana waxaan leeyahay haddii uuna ninkaagu uu joogi lahayn warshad wax soo saarta ma noqoteen abadan hooyana ma noqoteen oo qiimaha hooyadnimana ma aad hesheen abadan ha marka labadiinu ilaahay wuxuu ina leeyahay wala tansaw al-fadla baynakum ha fadliga dhexdiina aad isku leedihiin ha hilmaaminu ilaahay leeyahay waa maxay waa inaan isqiimayno ixtiraam iyo respect
marka maxaan idhi counselorku waa maxay charges ha waa lagu jaaji garaynaya waa in aad waktiga macalinkaas ama maaragtay counselorka ama mutacalimka aad u tagtay ee aad xalka weydiinayso waa inaad saacadihiisa uu kuu shaqaynaya adiga ee mushkiladaadii uu kula xalinayo aad bixiso waxaa la socota waan sheegay follow up halkaan aan kusoo koob insha allahu tacaala walaalaha ciddii rabta inay wax ku darsato ayaan siin doonaa follow up axmed naaji hadda insha allahu tacaala abwaan naaji cilmi jazaka allahu khayran maasha allah ilahay ha ku barakeeyo walaalaha kalena sida oo kale ayaan leeyahay xaasaska ilaahay ha noo dhowro ragga ilaahay ha noo dhowro allah isku keen dhowro allah iskaga keen dhigo sida uu naaji soo sheegay in aan isku noqono jannadii adduunka ee aan ku aadaynay jannadii aakhira insha allahu tacaala waxaan kusoo koobi lahaa markaa walaalahay baaraka allahu fiikum labadaas saasay u kala duwan yihiin ila tali dabcan culamada qaarkood waxay dhaheen saaxiibkay abu dalxa khayr allaha siiyo aan kula taliya talada ma qaadanaysaa ha macnaheedu waxa weeyaan tala wax ku oola marka lagu siiyo samee oo ku dhaqan oo la imow oo maaragtay ha lagaa arko laakiin inaad sheekhana waqtiga ka qaado macallinkana waqtiga ka qaado kabacdina taada aad iska wadato waa cadaalad darro iyo dulmi ayaan u arkaa anigu waqtiga aad ka dhumanaysa ummaddana ha ka dhumin adiguna waqtiga iska dhuminin waxaan leeyahay markaa oon idinkula dardaarmaya runtii haddaad aragto isfahan la-aan inay gurigaaga ka jirto adiga iyo ninkaaga adiga iyo xaaskaaga hadday noqoto nolosha inay cidhiidhi aad dareento waxaan idinkula talinaya walaalahay in aad raadisaan meel kasta oo joogtaan hadday buugaan tahayna buugaanta aad ka fahmi lahaydeen sidii nolosha aad wax ugu bedeli lahaydeen inaad raadsataan ood heshaan wayna jiraanoo way buuxaan iyagoo af soomaali ku qoran oo af carabi ku qoran oo ingiriis ku qoran faransiis ku qoran luqad kasta ku qoran way buuxaanoo way jiraan galbeedka haddaad ku nooshahay oo noloshu ay cidhiidhi tahay oo aad isla fahmi leedihiin adig iyo xaaskaagi adig iyo ninkaagiina waxaad u baahan tihiin waxaad joogtiin meeshii cilmigu uu yaalaybe waxaad u baahan tihiin in aad u tagtiin macallimiinta ka shaqeeya arrintan ku howlan isfahansiinta bini'aadanka bartay caqliga bini'aadanka bartay dabeecadaha bini'aadanka bartay dareenka bini'aadanka in aad u tagtiin oo aad la fadhiisatiin oo aad kharash ku bixisiin maxaa yeelay waxaad kharash ku bixinaysa maaha macallinka maaha maaragtay sheekha maaha counselorka waxa aad ku bixinaysa kharashka waxa wey waa naftaada college markaad aadayso waxaad samaysaa maxaan ku dhahdaayey wax kasta oo lagaa rabo waad dhiibtaa waad bixisaa not only cafwan not only maxaan ku dhahdaayey in kharash inaad bixiso lagaa rabo laba arrim oo kale lagaa raba waxaa lagaa rabaa inaad la timaado dhabar adayg maxaa la dhahdaa dhabar adayg ama jilib adayg inaad u jilib adeygto u jilib dhigto commitment inaad la timaado dhabar adayg waxbaa laguu sheegay wixii inaad samayso arrinta labaad waa maxay sacrifice tadxiya inaad samayso tadxiya waxaad u samaynaysaa naftaadii iyo xaaskaaga naftaadii iyo ninkaaga naftaadii iyo maaragtay ilmahaaga ayaad tadxiya u samaynaysaa waxaa loo baahanya markaa in aad la timaado sacrifice arrinta kale ee ugu muhiimsan ee number one ba ka waxaasoo dhan waa maxay mataqaanaa waxaa weeyaan in aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad aaminto oo aad barido oo aad ducaysato oo aad tidhaahdo ilaahay oo caqligayga bedel oo u bedel mid khayr qaba ilaahay oo dabacayga bedel oo u bedel dabac wanaagsan ilaahay oo nagu ilhaami waxa aan rabno ee aan rajaynayno in ay noloshan adduunka noo noqoto midda aakhire ee aad raali naga noqonaysana in aan gaadhno ilaahayow arrintaana si ducada is powerful ducada ha iloobin ducadu waa muhiim markaad ilaahay barido oo ad ilaahay weydiisato oo aad tidhaahdo ilaahow takhyiir baan rabaa iyo wanaag baan rabaa nolosheedu inay isbedesho ilahay uu kuu fududeynaya subxaanahu wa tacaala